hiigsigaygu waxa waaye lacagta intaas leeg meeshaan geliyey inay shaqayso. Waxaa laga yaabaa inaan anigu shaqaalaha nadaafadda ugu horeeyo. Sida u jeedan kushiinka anaa ku jira. Magacayga waxaa la yiraahdaa Axmed Jaamac Maxamed. Waxaan ku magac dheerahay Axmed Village. Waxaan ahaa nin ku shaqaysan jiray xirfadda la yiraahdo kuugnimada. Kuugnimadu ma aha mid aan ku bartay shaqo waan ku bartay laakiin waxa uu aaday college 1999 aan waxaan ka bilaabay gobolka la yiraahdo Birmingham oo ku yaala wadanka Ingiriiska. xirfadaas markaan anoo baranaya ayaan haddana waxaan ku shaqaysan jiray inaan ma artay si oo tababar iyo experience u helo xilliga wax baranaya maana xilliga kale. Sidaas awgeed ayaa maantana waxaan isku dayay inaan imaado magaalada la yiraahdo Gaalkacyo. Marka waa over 2 million wax ku kacay amuuman meeshaas. Anigu waxaan rabaa hiigsigaygu waxa waaye lacagta intaas leeg meeshaan geliyey inay shaqayso. Midda kale oo hiigsigaygu yahay waxaan shaqadan soo bartay waay. Sida u jeedan kushiinka anaa ku jira. Oday dhaqameedyadii iyo dad badan oo siyaasiyiin ah oo ama lawyer ii imaanaya. Waxaan ku enjoy gareeyaa lacag ma fiiriyo laakiin waxaan ku enjoy gareeyaa waa mahadsan tahay wax fiican aan siisay xagee tagteen isma arti muhiimadda waxa laga yaabaa inaan anigu shaqaalaha nadaafadda ugu horeeyo. Waxa laga yaabaa inaan waraabiska dhulka iyo rusheynta anigu qabto. Rumaantii koomana badan waa kala kulmaa. Hadda koorna way dhacday warniyo waxa leeyahay xilliga tayga xiran jirtaa la joogaa. Fariiso tayga xiro shaqaalaha shaqada u dhaaf. Laakiin shaqadu mar walba waxay u baahan tahay ninka aad dhiirigelinayso shaqaalahana inuu ogaado shaqadu waa muhiimadda. Noloshuna waa muhiimadda. Haddaad shaqada aad dhisin noloshu muhiimad ma aha. Marka anigu hadda waxaan u arkaa kuwa xoolaha leh waa mutakabirnimo. Ismooda marka anigu macnaha hadda shaqadaas aan qabo caafimaad qabaa waa ma aragtay wax dhib ima hayaan waan ku raaxaystaa. Shaqaalahaygii oo ila shaqeynaa ama dadka ila noolaana waxay u tahay dhiirigelin oo ah meeshaas inaan maanta meesha marayo birita ayaguna ay ka sii hanba qaadi karaan.